بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياشينا كحرن channel كاني يوتيوب كا إسماعيل عقيلة كسو دبادة برنامج شدينا مالين لها مالين والبال كان ندين كسو قد بنقارهان برنامج كان قصوين كقرآن كأن كسو قادنا إن شاء الله تعالى برنامج كينا أيان قد قلي دونا بإذن الله الباري فضلا هدان نقول عصبتها ولال subscribe saara channelka si ay dhiirigelin inoogu noqoto sidoo kale like saar haddaad ka heshay barnaamijyadeena ha ka iloobin inaad sii sheergarayso muuqaalada sidoo kale si waxyaabaha mar walba aan soo dhigna aad u hesho furo gambaleelka barnaamijkeena ayaan gudagali doonaa insha allahu tacaala maanta waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah qisooyinka qur'aanka gaar ahaan qiso laba ruux dhexmartay oo qur'aanka suuratul-kahfi gaar ahaan loogu hadlay qisadani ayaa waxay dhexmartay laba nin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga yeelay labada ruuxba tusaale qur'aanka gudihiisa kaas oo mid ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey beer taas oo ku baxayo canab sidoo kale waxaan ku xafidna uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala binaqlin timir waxaana yeelnay dhexdeeda zarac ama badar ayaan yeelna uu leeyahay ilaahay waxaan yeelnay beerta mid ka mid ah beertaasi waxaan siinay miro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ula jeedo miro qurux badan ayay soo saartay lagamana dulmin waxba waxaana ku burqinay ayuu ilaahay leeyahay hareeraheeda wowyaal waxaana yeelnay ninkii beerta iska lahaa miro ayaa beertii ay u dhashay markaas ayaa wuxuu bilaabay in nin saaxiibkii u faano isagoo saaxiibkii la doodaya ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa kaa badan xagga maalka iyo nasab sheegashada markaas ayuu ninkii wuxuu soo galay beertiisa isagoo naftiisa dulminaya markaasuu wuxuu dhahay uma malayn maayo in tani ay marna iga dhammaan doonto sidoo kale wuxuu kaloo dhahay umalayn maayo in beertan weligeeda ay iga dhammaan doonto ilaa waxay ii soo saaraysaa wax ka sii qayr badan ayuu dhahay ninkii saaxiibkiisa ahaa ayaa wuxuu ku yidhi isagoo la doodaya miyaad ku kufrinaysaa allaha ku abuuray ee kaa abuuray ee dhoobo iyo sidoo kale mino kabacdi ku simay oo qof kaa dhigay markaas ayuu ninkii wuxuu dhahay anigu rabbigey waa ilaahay qofna la wadaajin maayo markuu beertii soo galay ayaa wuxuu ku dhahay maashaa allah ama ilaahay ayaa ku siiyey oo ilaahay idinkiis ayaad ku heshay awoodna uma lihid wuxuuna dhahay waxaan kuu arkaa inaad iga yar tahay xagga maalka iyo owlaadda ninkii ayaa isagoo u jawaabaya ayaa wuxuu dhahay wuxuu mudan yahay rabbigay inuu u siiyo mid ka qayr badan beertaada wuxuu sidoo kale uu u raaciyey wuxuu u soo diri karaa dabeel baabi'isa markaas bay baaba' noqon kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas ayuu ahaaday biyihii mid engegay ama qalalay mana awoodin inuu wax soo saaro berihii dhan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii wuxuu qadaray in ay ka baaba'aan oo markii dambe beerta dhexdiida mirihii intuu gacanta ku qabto oo ninkii gacmihii ku gedgedinayo isagoo ka shalaynaya dhahayana rabbigay maxaan wax ula wadaajiyey mise aan ku kufriyey sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raaciyey in qof u hiilin karta aysan jirin ninkaasi oo mid loo hiiliya uusan noqon ama koox u hiilisa intaba aan loo heli karin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax waliba suurageliya ilaahay subxaanahu wa tacaala thawaabka uu dad siinaya ayaa ka qayr badan iyo sidoo kale qofka ciribtiisa dambe meesha ay noqon karto xikmaddan waxaan ka qaadanaynaa walaal in aadan ku kufrin ilaahay subxaanahu wa tacaala isla mar ahaantaana walaalkaaga kaaliisa aan xoolo ugu faanin waayo allaha maanta ku siiyey isagoo wuu siin karaa naceeb iyo kalgaceel labadiinna uu idin kala qabana kuuma siin xoolaha balse laakiin xoolaha waxaa loo baahan yahay in tasarufaadkiisa aad hagaajiso sidoo kale aadan ku xadgudbin xuduudda alle ilaahay kuwa xadgudba ma jecla qur'aankiisa ayuu sidoo kale ku sheegay guud ahaan saaxiibada channelkeena ku xihan barnaamijkeena qisooyinka qur'aanka allah aan kaga hadlaynay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doonno waa walaalkiin waa saaxiibkiin waa soo saaraha barnaamijka ismaaciil maxamed sid cali ismaaciil caqiila oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabaadiino nooli kulanti dambe